Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa 72 saac u qabtay xoogagga markaasi Tigreega ee ka soo horjeeda militariga qaranka Itoobiya. Abiy waxa uu sheegay in guud ahaan uu cafis u fidinayo haddii muddo 3 maalin gudahood ay isku soo dhiibaan dhammaan dagaalamayaasha u dagaalamaya kooxda Tigreega ee TPLF. Abiy Ahmed waxa uu barta Twitter-ku uu ku leeyahay ku shaaciyay in gabi ahaanba magaalada Makale ee xarunta maamulka Tigreegu ku hareeraysan yihiin militariga qaranka, isagoo oo intaa ku daray in magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya hadda ay ku jiraan gacanta militariga qaranka sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale afayeen u hadlay militariga dalka Itoobiya oo la hadlay wakaalada wararka qaranka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan uu soo gabagaboobi doono howlgalka qaatay wax ka badan 4 toddobaad ee ka soconayay waqooyiga wadanka Itoobiya. ilaa iyo hadda kama aanay hadlin maamulka TPLF dagaalka ay xukuumadda ku sheegayso in ay kula wareegtay magaalooyinka ugu waaweyn maamulka Tigreega ee ku yaala waqooyiga wadanka Itoobiya. digniinta ugu dambeysa ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa noqonaysa tii labaad, iyada oo sidoo kale horey uu sheegay in muddo kooban ay haystaan ciidamada u dagaalama TPLF in ay isku soo dhiibaan. Abiy waxa uu sheegay in haddii fursadan ay ka faa'iideysan waayaan dagaalamayaasha iyo mas'uuliyiinta sarsare ee TPLF sharciga ay hor imaan doonaan marka ay ku soo dhacaan gacanta militariga qaranka Itoobiya, isagoo oo meeshana ka saaray in gabi ahaanba uu wada hadal la geli doono kooxda TPLF oo uu ku sheegay in ay yihiin kuwa duminaya qaranka soo jireenka ah ee dalka Itoobiya. hadalka Abiy Ahmed ayaa imaanaya iyada oo wax ka badan 3 isbuuc uu dagaal xoog leh uu ka soconayo waqooyiga dalka Itoobiya, isla markaana Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu diiday in la dhexdhexaadiyo isaga iyo kooxda TPLF. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.